kulan wacan oo wanaagsan daawada waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka xogta wararka wadaan oo kale aad ka barneed inaad ka daawato TV-ga Galmudug. qodobada barnaamijka xogta wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka jawaabay hadal kala hore ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee degmadaasi. haddaba waxyaabihii uu ka yiraahday gudoomiyaha haatan xilka haya Cadaado aad barnaamijka ku daawan doontaa. qodobada kala daawada inta hawada ka baxay barnaamijka xogta wararka aad ku daawan doonto waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa furay aqoonsi isweydaarsi ku saabsan siyaasadda iyo maareynta maamulka deegaanka dalka. barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa halkaasi hadalooyinka ama khudbadooyinka laga jeediyay iyo sidoo kale wasiirada deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug khudbooyinka ay ka jeediyeen. qodobada kala daawada aad barnaamijka ku daawan doonto inta hawada ka baxay waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhawaan ay soo wado iskaashato dalka lagu gaarsiinayo xasilooni siyaasadeed. wasiirka wasaaradda warfaafinta oo arrimahaasi ka hadlaya aad barnaamijka ku daawan doontaa. qodobada kala dhageystay ama daawada waxaa ka mid noqon doona barnaamijka inta hawada ka baxay maamulka gobolka Banaadir oo dhawaan gacan weyn ka geystay fududeynta howlaha isxilqaan ayaa dhinaca kalena u diyaar garoobaya ka hortagga masiibooyinka ay keeni karaan roobabka nagu soo fudhayo. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. sidoo kale barnaamijka qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee dalka Shiinaha waxa uu uga qayb galay shir madaxeed gaar ah. haddaba shirkaas wuxuu salka ku hayo ayaad barnaamijka ku daawan doontaa. qodobadaas ayaad ku maqli doontaa ama aad ku daawan doontaa barnaamijka xogta wararka. barnaamijka anagoo dhan mar ay soo saar waan idinla socodsiin doonaa ee ku soo dhawaa mar kale barnaamijka xogta wararka. aanu ku bilaano daawada barnaamijka xogta wararka. gudoomiyaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu ka jawaabay hadal kala hore ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee degmadaasi Cadaado kaas oo ku aadanaa arrimaha isdawmarin iyo musuqmaasuq la xiriira. haddaba aanu wada daawano gudoomiyaha degmada Cadaado oo ka hadlaya ama ka jawaabaya eedeyntaasi loo soo jeediyay maamulkooda. bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. waxaan ka rabaa meeshan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin idaacaduhu aad ay u baafbaafiyeen oo aad iyo aad ay u farageliyeen oo aan ka xishoonaynay in badan. arrintaasi waxay tahay waxaa jiray gudoomiyihii hore oo idaacad walba aan ka xishoonayn ee war walba ka sheegaya oo dadkii shacabka ahaa ay dhagaysanayaan, culumadii ay dhagaysanayso, odayaashii ay dhagaysanayso oo degmada aad iyo aad dhibaato ugu haya. arrintiis inaan ka hadlo ayaan rabaa. in badan ayaan ka wareegsanay. waxaan uga wareegsanaynay deegaanka iyo dad ahaanta ayaa dhowris u baahan. waad ogtihiin wixii meeshaan ka dhacay. ami baashi ahayto UN-ka xilligii lagu xabadaynayay iyo shala galab oo wiil dhalinyaraho isqaamay oo yiri buundo jabtaan dhisaya lowr dhagaxa ku rogay lagu yiri lacag baada isii. waxay ceeb ku tahay ceeb waxay ku tahay deegaankay ceeb ku tahay, dad ahaantay ceeb ku tahay, noloshay ceeb ku tahay, hay-adihii samafalka wixii doonayay sharci inay waafaqaan oo sharci soo aadaan mid walba kuur buu u galay. wuxuu yiri haddaan lacag laysiin waa cubahalkii ahayto jidgooyaan ku jiraa. waxaan u sheegayaa horta ninka la yiraahdo tootole idaacadaha ka dhacaya tamaya gudoomiye ma aha. idaacadaha uu u waramaya codkiisii haya inuunan gudoomiye ahayn. kow sidoo ku yimid baad ogtihiin, kow laba sidoo ku baxaad ogtihiin. dulqaad ayaan sameynaynay
dulqaad ayaan samaynaynay aada u badan waxay gaartay dilan deegaankiiya in lala yimaado dan kaamalihi ah anigu waa tegay wax alla waxaan rabaan halaynaya waxaa wax ka qabadkaas ciidamadii qaabilsanaa amniga odayaasha dhaqanka kuwa bahalkii culummada arrintaa waa inay wax ka qabtaan waxaan kaloo sheegayaa hay-adaha oon rabaa inaan kusoo qaato munaasabadan hay-aduhu ma ahan iyo injooyada qayb ka mid yihiin ma ahan siyaasiyiin koox siyaasiyiin hadday yihiin toole ha la shireen hadba luuq ha la fariisteen sida qolo WFD oo kaleeto ah oo joogta bahasha la yiraahdo gaalkacyo fadhigoodu yahay oo maalin dhaweed u yimid oo ku ballameen inay corruption siiyaan suu bahalkii ay meesha usoo galaan corruption inay siiyaan ay ku ballameen waxaan leeyahay arrimahaas yayse ku kadsoomin arrimahaas yayse ku kadsoomin ayaan leeyahay ha ka joogeen haddii ay ku kadsoomaan waxaa iman doona shaqadoodii dhibaato u keenayaan sharci bay leeyihiin maamul baa waddanka ka jira ay aqoonsan yihiin ay hoos yimaadaan ha ku yimaadeen waddada saxda xafiiska degmada oo furan waa midkan hadda aan joogno oo shaqadu ay ka socoto oo aan shaqada ugu hayno degmada iyo adeeg tii kuwii la xiriira oo kuurba kula xiriiro corruptionka la doonayo kula xiriira shaqadooday wax u dhibayaan waxay wax u dhibayaan jiritaankooda dambey wax u dhibayaan shaksi aan dadna u naxayn dadna u danaynaynin buunda jabtay wiil isagu gartay in uu inta lowr ku shubo uu dhiso oo meesha gaariyaashu ka wareegsadeen dhiso ma ahan qof nin adduunyada nolol ka raba in uu ku yiraahdo baadisi haddii kale ma dhisaysid dhagaxaan wax la fiirsada ma aha wax la fiirsan kara ma aha waxaan kaloo sheegaynaa oon caddaynaynaa maalinkii UN-ka la xabadeeyey iyo maanta wixii ka dhacay halkan inuu asagu kolbadi tuu ka yahay waad ogtihiin adduunkan u sheegayna awal xishood iyo qarin iyo magaciisi iyo deegaankana asagu iskama lahan ma ahan shakhsi buu ka yahay waxaa la rabaa dadka deegaanka iyo shacabkuna inay arkaan wuxuu ishortaagay sumadii galmudug ayuu ka hadlayay idaacadaha ka maqlayseen wuxuu ishortaagi kara maaha waa ayaan daro hadda la shaqaynaya shaqadii socotaa maanta 10 baa lagu xiray salad 8 baa lagu xiray way shaqadii way socotaa waa ayaan daro inuu ka hadlo deegaanka sumadiisii عبد كريم وجوجال الأنسية كسعتي عدد القاضي لغالها لقوا بحدي وصمدي وضن كأستانتي أنا قدوني وقرنمو ووح فدر الكيمي إنه سكوهر تاجو على شخص عناء ووح أيام ذراء مركا هي أدوية سكتسو من بان لا هاي dadkii way oomeen hodbaalkii way baahdeen kaaban baa jiri biyo la'aan baa jirta abaar baa jidha waxaa loo baahan yahay si daaragtiya dadka inay u soo gaarsiiyaan waxa ay wadaan oo deeqbixiyaashu ay bixinayaan tii wada qaldan ku timaada meeshay ka soo qaadoon garanaynana waanu gudbinaynaa ayadana waa dacweynaynaa shaqadeeda inay ku weynaysaa mid walibana maamulka jira ayay taageersan tahay ee shakhsi ma taageersana systemka ha ilaaliyeen ha hagaajiyeen odayaasha dhaqanka mar labaad baan u digaynaa waxaan u sheegaynaa oo bahalkii aan ku boorinaynaa culimadiina inay arkaan arrinta ka taagan cadaado degmada cadaado waanu aamusnayn waan ka xishoonnay waan ka barbarinay waxaan intaas u yeelaynay systemka ayaa dhammaan doona waa wax iska dhammaanayo yar oo basiida saxara waxa fogeeyaa la yidhi qofkii og waagu inuu baryayo ayaa saxarada fogeeya waxaan lahay waa wax waqti ku siman oo dhammaanaya in la joogtaysto marka dadkii iyo deegaankii burburintiisii iyo baahidiisii in la joogtaysto dhibaato waa wax loo dulqaadan karin wadaag intaas aan kaga talaamno gudoomiyaha degmada cadaado ayuu ahaa oo arrimahaasi ka hadlayay haddaba markaan aanu eegno ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa daha furay aqoonsi iswadaarsi ku saabsan siyaasadda maareynta maamulka deegaanka shirkan oo muqdisho ka furma ayaa muddo 3 cisho socon doona waxaa ka qayb galaya maamul goboleedyada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed haddaba aan wada daawano qodbooyinka halkaasi laga jeediyay aan ku hormarno wasiirka deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana si raaci doona wasiirka wasaaradda deegaanka ee galmudug ugu dambeyntiina shirkaas waxaa ka hadlayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka yaasha oo qaybaha kala duwan ay yihiin oo halkan fadhiya waxaa kala gooni u salaamaya tiimka ee ka socda UNDP kadib markaan galo ajandaha hore u galo waxa waaye mudane ra'iisul wasaare
anugu waxaan ahay wasiirka environmentiga and wildlife Southwest State. sida la socoto mudane wasiir mar dhow baa la dhisay wasaaraddan horey waxay u lahaan jirtay wasiir dowle haddeertan waxay leedahay wasiir ku-xigeen waa dareemi kartaa waqtiga gaaban annaga hadda aan magacaawanahay wax badan baa qabanay muddo bil iyo hoogo baa jirnaa howlo badan baa ka qabtay xafiis waanu leenahay laakiin xafiis temporary ah ugu jirno waa wasaarad gooni uma lahan kale kalan uma jirto marka wasaaradda waxay leedahay shaqaalo oo voluntary ah ku shaqeynayo horey u jiray iyo kuwa cusub kuwaas oo u baahan xag inay helaan xuquuq iyo agabkii loo baahnaa inay ku adeegaan wasaaradda waxay leedahay wasaaraddu waxay leedahay wasaaradda wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo dhammaan maxaa la dhahay agaasimawaxyadii iyo agaasimayaashii bay leedahay sida hadda saaxiibkay uu sheegay waxaa waaye hadda waxaan ku howl jiraa in aan magacaabo gobolladii iyo degmooyinkii maadaama annaga aan cusubnahay hal mar lama wada magacaabi karo si oo looga shaqeeyo ay ugu shaqeeyaan baahida ay u qabaan Southwest State ama Soomaali ay u gaarsiiyaan bulshadeeda qeybaha kala duwan degmooyinka iyo gobollada kuwaas oo wacyigelin doono oo maxaa la dhahay ilaalinta deegaanka waad ogtahay mudane waxaa la jarayaa dhuxushi baa la jarayaa dhuxushi marka la jaro waxa xaalufintii dhibka ay ka dhacaysay waa tii hadda aad ka hadlaysay teeda kale waxaa jirta wasaqeynta deegaanka waxaa waaye ummadii qashinkii wax waliba waxaa lagu soo tuuraa suuqyada ama meelaha deegaanada ama meelaha kuwaas oo haddana dadkii aanan fahansaneen kambaniyo iyo waxyaaba qaadaya oo in loo sameeyo oo haddana ayaga naftirkooda tababaran oo maxaa la dhahay marka waste management marka la sameeyana waxaa loo baahan yahay dad tababaran oo haningareynayo waxaas qashinkii la qaada meeshii lagu shubaay iyo landfill in la lahaato maxaa la dhahay nidaamadii saxda ah in la maro taasna waxay u baahan tahay dadaal badan annaguna waa ku tala jirnaa inaan sameyno hadda waxaanu haysanaa starting fiican baa haysanaa sida la socoto waxay jirtay 17 April bishaan waxaa jirtay maalinta dhirta Soomaaliyeed ka Southwest ahaan waanu qabanay barnaamijka isaga telefishinada iyo maxaa la dhahay iyo website-yada iyo waxyaabahaas waanu marinay marka maanta waa aad iyo aad baa u fiican tahay in nagala soo qayb gasho oo shirkan muhiimka leh noo furtid oo annagana aan kuu sheegno baahideenna oo guud ahaan iyo tan gaar ahaaneedba waa la socotaa Soomaali baahideeda waa isku mid sida la socota maadaama gobol kale baahidiisa gooni ay ka tahay haddana marka environment-ga laga hadlayo isku mid ahaanaan nahay haddana marka ayadoo saas fursadda ay qaaliga aan siisay waa kugu mahadcelinaynaa iyo maxaa la dhahay aragti kale aan samaysanayna taana dhahdeen waa kugu mahadcelinaynaa anaguna waxaan u shaqeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo dalka iyo dadkeena aan u shaqeyn doono anuga magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Xuseen waxaan ku magac dheerahay Maxamed Soomaali waxaan ahay wasiirka bay'ada dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug waxaan nasiib u helay inaan wasiir ka sii ahaado ilaahayna nafta baaqi uu iga dhigay muddo 3 sano iyo 4 bilood ah rag badan oo saaxiibaday ah oo wasiirro aan isla ahayn baa qaar dhinteen qaar la bedelay haddaan xuso wasiir burci allah u naxariiste waan isla soo shaqaynay wasiirkii deegaanka ee koonfur galbeed ninkii la oran jiray macallin jiis allah ya raxmo waan isla soo shaqaynay runtii waxaan isleeyahay wax badan baad ka ogtahay arrimaha deegaanka runtii ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqoto wax badan baana jira oo runtii caqabada ah baahi badanna way jirtaa wax hadda halkan aan kusoo koobi karno runtii ma aha mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaan ku faraxsanahay runtii inaan maantay aad halkaan noogu timaadidoodna dhegaysatid annagu ka Galmudug ahaan runtii xaalad emergency aan ku jirnaa isbuucyadii la soo dhaafay biyo dhaamis baa lagu jiray abaartu si xun bay noo saamaysay innaga hadda
horeyna abaartu way noogu dhufatay oo 2016 iyo 2017 Soomaaliya oo dhan baan la wadaagnay laakiin annaga si gaar ahaaneed way abaartu noo taabatay runtii heer xitaa xoolaheennii iyo dadkii intii awoodi kartay ay hayaameen oo Somaliland iyo Puntland ay u hayaameen baan gaarnay wax haba yaraatee response ah ama jawaab ah oo ay heleen haba yaraatee ma jirto oo dhinaca resilience-ga oo adkaysiga aanfooyinka hadday biyo aan lahayd hadday food aan lahayd nooc kastoo resilience ah oo dadka loogu caawin lahaa ma aynan helin mushkiladahaasna mushkiladaha hareeyey si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba hay-adaha waxaa Soomaaliya ka caawiya runtii cidda accesska u leh waa dowladda federaalka iyadaa mas-uuliyadda ka saaran tahay runtii si gaar ahaaneed inay arrintaa isugu xil saarto runtii arrimaha abaaraha haddii aan halkaa uga gudbo annaga galmudug ahaan waxaan mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen access aan u leenahay ama aan gaari karnaa dhul baaxad weyn oo galmudug ah marka laga bilaabo xuduudka Hirshabeelle aan la leenahay ilaa xuduudka Puntland aan la leenahay accesska ama isku socodku waa ammaan marka dhul badan baan ogaan karnaa hadda assessmentigii u dambeeyay ee abaaraha iyo waxaa loogu kuurgalaya FSNU aan la sameynay dhul badan baan marnay ilaa 10 degmaan ayaan marnay waan ogaanay baahida jirta iyo abaartu sida ay deegaanada ugu dhufatay fursadda qaaliga waan leenahay inkastoo meelo ka mid ah degmooyin qaar ay joogaan oo dhanka bari ah ay cadowga ay haystaan ummadda Soomaaliyeed runtii baahidaas iyo caqabadaha jira oo faahfaahsan ayadoo document ah baan kula wadaagi doonaa marka aan kula kulmi doonaa haddii Ilaahay idmo dhinaca wasaaraddeena iyo capacity-ga wasaaraddu ay leedahay nasiib wanaag annaga hadda waxaan maraynaa inaan sub office furano oo gaalkacyo kale sub office aan ka furano horeyna cadaadan ugu lahayn xafiis main office-kana waxaan ku leenahay hadda Dhuusamareeb annagoo ka faa'iidaysanayna mashruuca Proscol UNDP iyo hay-adaha qaar ay fankiisa bixiyeen waxaan samaynay nursery farm ama meel lagu xanaaneeyo dhirta ilaa 5,000 oo geed oo 2 dufcadood ah 2,500 mar ah ilaa 2,500 mar ah ayaan beernay ka bacdina waan distribute garaynay hadda dufcaddii afaraad baan maraynaa waxaan aaminsanahay runtii inayna 5,000 oo geed kaliya aysan ku filnayn haddii dhinaca dhuxushoo kale iyo sida dhirta loo xaalufinayo waxaa jirta Puntland iyo Somaliland oo kale inay iska joojiyeen dhuxushii annaga caqabad nagu noqotay market baan u noqonay in dhuxushii area galmudug laga jaro la qaado Puntland la geeyo ama Somaliland la geeyo dadaal badan oo aan sameynay ka wasaarad ahaan waxaan sameynay legislation-ka ama hindisa sharciyeedkii dhuxusha lagu joojinayay baarlamaankan waan ka baas garaynay golaha wasiirada waan ka baas garaynay ka bacdina si official ah dhuxushii hadda u joojinay waxaa marka caqabadahoona haysata inaanaan alternative energy-gii aan ku bedelnayn aanaan haynin in dadkii waxaas ku howlanaa ee dhirta jari jiray oo wacyigelin aan u sameynay aynan iyagiina haysanin alternative livelihood oo macnaheedu wixii badiilkii ay nolol ku raadsan lahaayeen aysan haynin marka mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen runtii caqabaduhu way badan yihiin baahiduna way badan tahay waxaan is leeyahay shirkan maanta iyo shirarka dambe ee xigi doonahay waxay furo u noqon doonaan sidii aan common response macnii jawaab loo dhan yahay aan u samayn lahayn culayska jirana runtii oo innaga hadda ka state ahaan aan wajahayno inaan heer federaal aan support uga helno si arrintu ay nooga fududaato arrinta kaloo ayadana muhiimkaa waxaa weeye oo aan rabaa ayadana inaan mudan ra-iisul wasaare aan ka dhawaajiyo waxaan u baahannahay coordination meeting oo wasaaradaheenan heer state iyo maxaa la dhihi jiray xafiiskaaga maxaa yeelay markii aniga adiga isugu kaana dambayso waad ogeyd haddaad xasuusatid waxay ahayd 2017 sidoo kale aan u codsannay haddii xilligaas coordination meetingada aan joogtayn lahayn
wax badan baa maanta noo qabsoomi lahaa si kastaba xaaladdu ahaato waxaan kaaga mahad celinaynaa imaanshiyaha aad noo timid iyo sida aad noola wadaagaysid ama aad nooga dhegaysanaysid deegaanadii annaga mas-uuliyadda aan ka helnay deegaanka iyo biicada iyo cimiladu waa jiritaanka ummadeed iyo dal maanta adduunka halka ay ka taagan yihiin dunidu maanta waxay ka cabanaysaa innaguna haddaynu Soomaaliya nahay dhibaatada ugu weyn inagu haya isbeddelka cimilada adduunka waxay nagu haya nabaad guurka waxay nagu haya xaalufinta dhirta iyo kaymihii oo la xaalufinayo oo dhuxul loo shidayo si tamar ay ugu yaraan ka helaan qoysasku ka darana haddana inta la xaalufiyo oo dhirtii bilicda iyo wanaagga keenaysay roobka keenaysay la jaro la dhoofinayo wadamada dibadda loo dhoofinayo marka haddii aynaan u soo wada jeedsanoo gacmaha aynaan isqaban deegaanka iyo biicada hagaajintooda dalkan dhibaatooyin waaweyn ayaa soo waajihi doona waa ogtihiin Soomaaliya haddaad 30 sanadood ka hor inteeni ku kortay siday ahaan jirtay xilliyada guga xilliyada kale xataa dhirtu ay ahaan jirtay iyo maanta xaalufinta ku socota dabargoynta ku socota duurjoogtiyo haajirtay ama dagaalada riiq dheeraaday sabab ha u noqdaan ama deegaanka isbedelaya dhirtii ay ku gaban lahaayeen oo la jarayo dhuxul loo bedelaya ha u noqdaan waxyaabahaas oo dhammi waxa ay dhibaato ku keenayaan deegaankii markay dhibaato ku keenaan noloshii reer miyigu deegaanka ku noolaan lahaayeen ama beeraleydu ayay saameyn ku yeelanayaan markay taas saameyn ku yeeshaan oo meel ay calaf ka helaan nolol laga helo waayaan magaalooyinkii baa la isugu soo wada shubmaya waxa maanta dunida ka jira wax loo yaqaan oo innagana saameyn weyn nagu leh qaxoontiga ay isbeddelka cimiladu keeneen ama climate change refugees waxay ku yiraahdaan afka qolaad waxaynu bariinsanay oo aynu ehel hadda u noqonay laba daran midkood Soomaalidu waligeedba guga iyo jilaalka way u dhaxayn jirtay laakiin jilaalkiina meel lagu irkadaa joogay oo xaab iyo calaf dhulka yaale iyo meelo kale oo dihino aan dhirtii wax un ka sii jiraan iyo baa loo guuri jiray oo dabeedna la ismarti gelin jiray maanta tii meesha way ka wada baxdo waa la siman yahay abaaraha soo noqnoqonaya oo ay sabab u tahay dhirtii oon jirin way haddaan dhir jirin juqraafiga sidaan ku dhiganay haddaan boor jirin roob di'i maayo markii roobka yaraaday abaaro xaalufiyo dhulkii oo dhan dadkiina barakiciyaa dhacay markii roobkii uu da'ayna waxa uu keenay fatahaado mar labaad haddaynu roob helno oo uu doo fatahaad iyo baabiin dalagiya iyo dadkii uu barakiciyo iyo wabiyadii oo fataha iyo dhulkii oo dhalan rogo ayuu dhalaya waana isbeddelka cimilada sababaha ay keentay haddii aanu roob jirin oo jilaal jirana oo dhibaato jirtana iyadana waa barakac labaad marka waxaynu u baahannahay inaynu ka shaqeyno kow siyaasadihii lagaga hortagi lahaa waxyaabahaas oo dhan iyo shuruucdii unkami lahaa idinkaa maskax u ah ama maamul goboleedyada ha noqoto ama dowladda federaalka iyo wasaaradaha kale khusayso ama aqoon-yahanka iyo marti sharafta kale ee halkan joogta inaynu abuuri karno ugu yaraan bal roobka aynu helno sidaynu u suurtagelinaa inaynu qabanno haddii roobkan intuu daawun badda ku dhacay ama badweynta Hindiya galay ama badda cas galay oo biyo fara badan oo aynu qabsan kari lahayn oo dhulka cagaar ka dhigi lahaa mar dhowna xooluhu ka cabi lahaayeen iyo dadku ama irrigation loo isticmaali lahaa way nooga suurtoobi lahayd biyaha webiga sidoo u fatahayo labada webi badda ku dhamaanaya ama meel dhex ku baaba'aya iyagu ku dhowdana waxay u baahan yihiin in la maamulo iyo webiyadii oo hadda waliba shabeellahan u badnaadeen u dhaxeeyo un maruu qalalo oo caruurtu ay kubadda ku ciyaarayso iyo maruu fataho see looga shaqeeyaa tamartaynu leenahay waa ognahay laakiin haddaynu siyaasaddii iyo shuruucdii loo baahnaa aynu keenno oo adkayno oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba aynu gacmaha isqabsanno wax waa laga qaban karayaa maanta deegaanku waa caalami deegaanka meel kastoo dunida ka mid oo deegaanku dhibaato ka jirta dunida inteeda kaloo saameynaya in deegaanka laga shaqeeyo in bilicdii laga shaqeeyo in daaqsintii aynu soo celino ugaadhii soo celino oo meel ay ku gabadaan ay helaan waxyaabahaasoo dhan waxaa saldhig u noqonaya in aynu helno siyaasadii loo baahnaa iyo shuruucdii loo baahnaa lana fuliyo sharci waa la soo saari karaa qurux badan laakiin wuxuu u baahan yahay fulintiisii inay dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ka wada shaqeeyaan arrinta kale ee iyaduna muhiimka ay tahay inaydun ka doodaan dabadeedna aynu xoojinno oo sideebaynu u meel marinaa ka shaqeyno waxa weeye wada shaqeynta
dowladda federaalka iyo xafiiska deegaanka iyo cimilada dowladda dhexe iyo maamul goboleedada sidee baynu u wada shaqeynaa wasaaradihiina iyo annagu xiriir intee leeg baynu yeelanaa maalmahan oo dhan baad ka doodi doontaan ma bishii mar baynu isu nimaadnaa la shiraa maxaa qabsoomay annaguna idinku nimaadnaa xarumihiina waxyaabahaasoo dhan waxaa sii xoojinayaa in wada shaqaynta sii adkaato marka waxaan isleeyahay 3 cisho oo maanta iyo beri iyo saa dambe inaydun la fuguri doontaan wada shaqaynta aynu leenahay iyo coordination iyo xiriirka sidaynu sii xoojin lahayn siyaasadda qaran ee deegaanka isbeddelka cimilada adduunka biodiversity-ga qudhiisa waxyaabaha kala duwan ee deegaankii la xidhiidha siyaasadaha aynu ka yeelan lahayn shuruucdii aynu ka yeelan lahayn naaqishidoodii iyo kadoodistoodii iyo mar dhow inaynu ka wada shaqeyno fulinteeda innagunba ehel dalka u ah dadna u ah cidna uma maqna ceelna uma qodna waa inta halkaa joogta deegaanka iyo biicadda Soomaaliya sidii loo wanaajin lahaa waxna looga qaban lahaa shirku si rasmi ah buu inoogu furan yahay madaxdeena wasiirada maamul goboleedada kulan gaar ah insha Allah oo intan ka sii qoto dheer ayaynu isugu iman doonaa shirku waa inoo furan yahay waa mahadsantihiin waa hagaag daawada qeybaha dhexe ee barnaamijka xogta wararka ayaynu soo gaarnay TV-ga Galmudugna waad naga daawanaysaa markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dhawaan soo wadaa iskaashato dalka lagu gaarsiinayo xasiloon siyaasadeed wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa hadalkani ka jeediyay kulan maanta Muqdisho ka dhacay oo lagu soo dhaweynayo wiil dhalinyaro ah oo asoo daayar ku guuleystay shahaadada PhD-ga haddaba aanu daawano wasiirka wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geele mararka kale ee mustaqbalka Soomaalidu u dhifay waxay ahayd mararka ay koreysay isqaadashadu mararka ay yiraahdeen xanafta carabka xanafta loo yiraahdo mararka ay dadku ku qanacsanaayeen madalada ay leeyihiin madasha ay leeyihiin ay xukunka iskaga sugaan walaysada ugu badan marka oo aan wajahayno waxaan uga bixi karnaa inaan galno xiwaar furan waayo waxaa la isku haysa haddii ay yihiin dowladnimada siday u soconaysay sida loo hagayay sida oo wax loo kala sugayay sida la isu xukumayay waa dad wax wada leh dadku markay wax wada leeyihiin hababka ay wax ku wadaagaan waxaa ugu muhiimsan inay soo fadhiisaan marka kan wax tabto iyo wax laga tabto soo fadhiisto ayaa asal ah waxaa nala siman siyaasiyiinta maanta jooga markaan nahay amba annaga wasiiradii dadka xilka haya ah ha noqoto amba dadka xanaanka aan wax wada diidan ama mucaarado dheh amba dadka hanka hogaaminta qaba dheh waxaa nala siman inaan soo fadhiisano oo aan ka wada hadalno xilliga annaga xilku nasaaran yahay Soomaali ahaan amba generation ahaan oo daayartaa weli ciid xil kuma saarna inaan annagoo isla jirno generation kale oo hawsha nagala wareego midka dibadda jooga dibadda ma joogi doono midka gudaha joogana gudaha ma joogi doono midka gudaha joogo oo talada haysay annagoo kale inaan bilinta wax u reebno oo wax la isugu yimaadaan marka raba midka banaanka joogo halka hogaaminta ku jiro inuu yimaado rabana kamaa tadiinu tudaan sidaad yeesho unbaa lagu yeelayaaye dhaqan mucaarado quman inuu sameeyo ayaa laga raba annagana dhaqan talin oo qurxan aan samaynaan marka raba haddii annagana laga waayo dhaqan talin oo xun oo quman boog lagu taalay noqonaysaa taariikhday la soconaysa haddii iyaguna dhaqan mucaarad oo quman oo birinta midka waa haddii ilaahay siiyo mucaarado ku imaanaysa dhaqan qumanaysa horseedin iyo aadaab iyo anshax siyaasadeed anshax qofeedka hadli maayo aysan samayn iyagana waxaa imaan doona kuwo oo gabarkaaban u fadhiyo oo waxay dhihi jireen oo xoogaa lagu daray iise yeeli jireen oo xoogaa lagu sii kordhiyey ku yimaado marka fariinta aan rabo inaan diro waxay tahay wallaahi waxaan isqaadasho ahayn inaanay noo furnayn oo aan la kala adkaanayn
aysan labis kuu noqonayn kan ilaahay soo wado celin tagtana aadan ku guulaysanayn. marka waxaan rabnaa annaga dowlad ahaan hadda waxaan wadnaa hanaan ah isu raadin. waxaan damacsanaha qorshe ahaan waqti dhow aad arki doontaan hanaan isu raadin ah. marka dadka hadda oo dibadaha inta tagay aan dareemayn inay sii fogaanayaan waxaan leenahay meeshaan noo baleynaysin ma jirno inaan wax sii u yeernaan rabnaa in laysu imaadaan rabnaa. yani maxaa idhahda baabuur isliidkaa laga badin haddaan laygeysina waxay yidhahdaan soomaalidu laba dhaxal isku haysato intay isu jirtaa lama yidhahda. dadkan oo dowladda xukunka ku haysto dadkii nala lahayo annaguna waxaan nahay dowladda kaliya ay adduunka ku leeyihiin. waxa soomaali mucaarada arkaysaan hal wasiir warfaafineed jawaan daahir maxamed geelaa la yidhahdaa ogaan. hal wasiir warfaafineed jawaan khadiijo maxamed geeliyaa la yidhahdaa. kahorna hal madaxweyne leeyihin oo rasmi ah oo adduunyadu ogosha maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhahda. laakiin iyaguna waa sheerlayaal, waa dad waxaan hayno wax ku leh oo nala leh oo yeelan jiray yeelan kara dowladda. laakiin annaguna maamulka inuu naga xumaado ma aha, maa naga xumaanay waa buuxinaynaa. iyagana sugitaanka iyo maaragtay inuu ka xumaado oo dhali karka ay ka badiyaan ma aha. waagaag daawada qeybaha dhexe ee weli barnaamijka xogta wararka ayaad daawanaysaa. si toosana galmudug t v ayaad ugu daawanaysaa. markaana maamulka gobolka banaadir oo ay gacan weyn ka geysteen fududeynta howlaha isxilqaan ayaa dhinaca kale waxa ay u diyaargaroobayaan xil roobaadka fooda nagu soo hayo, iyagoona daadadka biyaha ka dhalan kara iyo sidoo kale musiibooyin kale ee roobabka dhalan kara ee ka hortagayaan. haddaba qaar kamid ah howlwadeenada maamulka gobolka banaadir ayaa saxaafadda maanta la hadlay. bismillaah alxamdulilaah. marka hore waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh maalin walba aad noola joogtaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed. haddaan nahay bahda isxilqaan ka gobolka banaadir ahaan waad la socotaan. waxaan had iyo gooraale ka qayb qaadanaa barnaamijka isxilqaan goobihiisa dhismaha hadday ahaan lahayd, garoonkii cayaaraha maaragtay Stadium Muqdisho hadday ahaan lahayd, maktabadda, madxafka, tiyaatarka intaba. waad la socotaan barnaamijkan waa barnaamij uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waa barnaamij ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu har iyo habeen garab taagan yahay. intaas markaan ka soo gudubno xaaladda hadda uu maraya maktabadda iyo madxafka iyo tiyaatarka. maktabadda markaan ka hadlayno, maktabadda waxay maraysaa waxay ka soo daba dhowaatay madxafka iyo tiyaatarka. waad la socotaan way ka dambeysay markii hore, haddana heer waxay maraysaa meel fiican ayay maraysaa. dhismaheedana waxaan rajaynaynaa markii ay dhammaanayaan kuwan kale inay ayadana la dhammaan doonto hadduu ilaahay yidhaahdo. dhinaca kale tiyaatarka markaan fiirino isagana waxa uu marayaa heer gebagaba ayuu marayaa. xilli roobaadkii guga ayaa la soo galay. tiyaatarka waa ogtihiin waxaa dhismihiisa socda fooqi kore ee laysku xirxiraya maaragtay ee kore ayaa socda. marka roobka si uusan waxyaabo dhibaato uusan u gaarsiin waxaa la wadaa sidii looga difaaci lahaa. waa la dhammaystiray howshaas qaybteeda kuwaad waa la dhammaystiray. maantii birrina waxaa soo gabagaboobaya ka hortagii xilligan guga maaragtay roobabka imaan doona inay maaragtay ayadana ay dhammaato. madxafka isaga shaqadiisa waa ogtihiin waa meel way ka weyneed maaragtay maktabadda wuu ka weyn yahay. shaqada dhismaha iyo waxa socda ka sokow waxyaabo kaloo waxaa jira laga soo saarayo gudihiisa oo maamulka dowladda hoose oo ay siiyeen gaarigoodii iyo maaragtay iyo maxaa la dhahaa iyo qalabkii ay wax isaga qaadi lahaayeen oo dhan. intaas guud ahaan markii la isku soo dardaro waxaan intaan dadka bulshada Soomaaliyeed na fiirsanaysa la rabaa inay ka fahmaan waddankan annaga iska leh. waddankan uma baahna inaan mar dambe aan dib u burburino. waddankan waa inaan dhisannaa annaga gacmaheena awal ku baabi'ina, haddana gacmaheena ku dhisanaynaa.
mar labaad haddana ma rabno inaan ku baabi'ine horaa loo soconayaa diyaar garowga waad la socotaan roobabkii waxay ka bilowdeen gobollada waqooyiga hadda ka soo bilowdeen waad arkayseen Hargeysa roobabkii xoog ayuu uga da'een Boorama xabeen hore ka da'een xalay Hiiraan roobabkii uu ka da'ay kulaylka magaalada jira iyo waxa jira oo arkaysaan oo dhan waa roobkii oo Ilaahay maaragtay noo soo wado oo aan jecelnahay maalmaha soo socda magaalada Muqdisho inuu roobkaas ka da'aan diyaar garow xoog lahaan soo binay waad la socotaan bulaacadii number 4 ee biyaha fadhiisan jiray markii airportka la aado ma laga yaabo hadduu Ilaahay yiraahdo roobka hadda soo socdo biyo inay fadhiistaan waa ka shaqaynay waa dhisnay 42 mitir la qoday roobka soo socdo dhanna way u adkeysan kartaa bulaacadii Boondheer waad la socotaan waa dhisnay waad la socotaan bulaacadii warta nabadda shaqadeeda way dhamaatay waad la socotaan ka bilaaw Tumbuluq ka bilaaw ilaa iyo dekada ku gee godki dheeraa bahashi maxaa la tubooyinka biyaha ay marayeen waa ka bixina caradii oo dhan hadda waa lagu dhex socon karaa oo waxaad aragtay maamulkii sare gobolka Banaadir oo ku dhex socda roobabkiina diyaar garow xoog lahaan u soo binay magaalada Muqdisho khayr Allah si maamulkeeda sare gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Yariso waxa uu ku guuleystay in ay bulaacadihii dib loo habeeyo oo si fiican ay u shaqeeyaan insha Allah ayadana waxaan rajaynaynaa in intaas iyo wixii kale soo kordhana aan la wada socon doono xilliyada roobka marka ay ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalka Masar waxa uu u qayb galay shir madaxeed gaar ah oo lagu hadlayo arrimaha dalka Suudaan oo dhawaan afgambi oo ka dhacay madaxweynihii dalkaasi muddo 30 sano hayna xilka laga qaaday shirka ayaa sidoo kale waxaa soo qaban qaabisay madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi oo ah gudoomiyaha midowga Afrika dalkiisna lagu qabanayay sidoo kale shirar kale ee la barbar socday waxaa ka mid ah kulan oo madaxweynaha la qaatay dhigiisa dalkaas oo lagu hadlayay arrimaha Soomaaliya haddaba aanu daawano wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cawad oo arrimahaasi ka hadla kala hor inta uusan shirka furmin oo looga hadlayo arinta Suudaan shirkaas waxaa isugu imaanaya dalalka dariska la ah Suudaan sida dalalka IGAD oo Soomaaliya xubinta ka tahay iyo Masar iyo Chad waxaa Masar ayaa martigelinaysa maxaa yeelay madaxweynaha Masar waa ka sokow inuu yahay daris Suudaan Masar tahay waa sanadkan Masar waa gudoonka maaragtay Afrika waxaa kaloo ka soo qayb galaya madaxweynihii hore ee gudoonka Afrika Masar bedeshay oo ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha South Africa oo ah gudoomiyaha AU-da sanadka soo socdo ka dambeyn doona madaxweyne Sisi marka intaas oo madaxweyne ayaa isugu imaanaya iyo dad kale oo dalalkaas IGAD ka socda hagaag daawad inta ayaan ku soo xiriyaa barnaamijka xogta wararka oo aad qodobada ku daawateen barnaamijka anagoo dalmaraya soo saar waan idin la socodsiinayay farsamada xagga iyo kaamirada wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Shariif fankiisa xiga inta mar kale ku kulmi doono sidaas nabadgelyo waan ku maasantaa daawashada barnaamijka